of the tragedy and loss of life in the Mediterranean. madaxweynihii hore ee waddankaasi Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe ayaa ku geeriyooday waddankaasi Singapore isagoo 95 jira. Robert Gabriel Mugabe waxaa Zimbabwe uu maamulayay in ka badan 35 sannadood waxaana xilka uu qabtay kadib xorriyaddii waddankaasi uu helay 1980. I, Robert Gabriel Mugabe, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe, so help me God. afartii bilood la soo dhaafay waxa uu ku jiray cisbitaal ku yaala Singapore halkaas oo musaafiris ahaan ugu noolaa tan iyo markii xilka laga tuuray sanadkii 2017. Comrade Daraji Mugabe should resign forthwith from his position as president and head of state and government of the Republic of Zimbabwe. madaxweynayaal badan ayaa waxa tacsiyadeeyeen dhimashada Mugabe iyagoo markaasi ku tilmaamay hogaamiye u soo diray xorriyadda Afrika oo aad u aaminsanaa mabda Afrikaanimada iyo gumaysi nacaybka. madaxweynaha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa waxa uu soo gaabiyay safar uu ku joogay koonfurta Afrika waxaana uu ku laabtay dalkiisa si uu markaasi u qorsheeyo habka aaska ee Robert Gabriel Mugabe. madaxweynaha Kenyana waxa uu amray in calanka hoos loo dhigo muddo 3 maalmooda isagoo ku sifeeyay inuu geeriyooday hogaamiye qayb weyn ka soo qaatay xorriyadda Afrikaanka. Mugabe waxa uu dhashay 1924 inta badan noloshiisana waxa uu dhaqdhaqaaqay xorriyadda waddankiisa isagoo ka soo horjeeday dawladdii gumaysiga. wuxuu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano kadib markii uu eedeeyay dawladdii gumaystaha ee Rhodesia sanadkii 1964. sanadii 1973 ayaa isagoo xabsi ku jira waxa loo doortay madaxweynaha xisbiga SANU PF ee waddanka Zimbabwe kaas oo ka mid ahaa aasaasayaashiisa. dhinaca dhaqaalahana Mr Mugabe ayaa waxa mar uu yiri hadal caan baxay oo ahaa in dalkiisu aanu weligii musallafi doonin balse sanadkii 2008 Zimbabwe waxay ahayd markab sii quusay oo kale sicir bararkuna waxa uu gaaray 231 milyan boqolkiiba. talaabooyinka kale uu qaaday waxa ka mid ahaa inuu la wareegay beerihii ay lahaayeen dadka caddaanka ah kuwaas oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha Zimbabwe waxaana meesha ka cararay deeq-bixiyaashii caalamka. dawladdiisana waxaa saarnayd cunaqabatayn muddadii xilka uu hayay taasi oo ka dhalatay markii uu beeraha ka qaaday caddaankii tirada yaraa ee Zimbabwe deganaa. mar kastaba dhaqaala burburka Zimbabwe waxaa Mr Robert Mugabe uu ku eedeyn jiray dalalka reer galbeedka oo ay hogaaminaysa Britain oo si weyn uga soo horjeeday xukunkiisa waxaana uu sheegi jiray inay doonayaan in xilka ay ka tuuraan isaga isla markaasina xoog ay kula wareegaan dhulka iyo beeraha Zimbabwe. dadka isaga taageersanaana waxay u arkeen hogaamiye ruuxi ah oo aan laga hadli karin xukunkiisa. dadka isaga naqdiyaana waxay ku eedeeyeen in aanu fahamsanayn sida uu u shaqeeyo dhaqaalaha adduunka ee casriga ah waxaana ay sheegeen muddo badan inuu ku mashquulsanaa sida loo qaybsanayo khayraadka dalka halkii uu ku mashquuli lahaa sidii loo kordhin lahaa dhaqaalaha Zimbabwe. dhinaca doorashooyinka ka hor doorashooyinkii 2008 Robert Mugabe waxa laga soo xigtay inuu yiri haddii doorasho lagaaga guulaysto dadkuna ay ku nacaan waa inaad iska tagtaa. markii doorashadii xilligaasi dhacday uu kaalinta labaad galayna ee wareegii labaad loo gudbay Mr Mugabe waxa uu sheegay in Ilaahay oo kaliya uu ka qaadi karo xilka. si uu taageerayaashiisa u badbaadiyay hogaamiyihii mucaaradka Morgan Tsvangirai waxa uu ka baxay wareegii labaad ee doorashada kadib markii ciidamadu ay bilaabeen inay dhibaateeyaan mucaaradka iyadoo markii dambe Mugabe lagu qasbay inuu awoodda la qaybsado Morgan Tsvangirai hogaamiyihii mucaaradka oo laga dhigay ra'iisul wasaaraha Zimbabwe muddo 4 sanadooda. haddii si kale loo dhigo Mr Mugabe waxa la odhan karaa waxa uu muquuniyay oo uu ka adkaaday mucaaradkiisa oo dhan taasina waxa muujinaysaa muddada dheer ee xilka uu ku nagaaday. kaartooyinkii uu isticmaali jiray isaga iyo taageerayaashiisuna waxa ka mid ahaa talaabooyinkii ay samayn jireen markii ay jabhadda ahaayeen. markii uu dhadhamiyay guuldaradii koowaad ee doorashada sanadkii 2000 xilligaas oo uu ku guuldaraystay aftidii dadka laga qaaday waxa uu hawlgeliyay maleeshiyaadkiisii xilligii jabhadda oo markaasi wata magaca ah halyeeyada dagaalka kuwaas oo gacan ka helaya ciidamada ammaanka ee Zimbabwe
waxay bilaabeen inay laayaan mucaaradka, qaar la jirdilo, qaarna la cabsi geliyo. 8 sannadood kadib 2008 isla arrintii oo kale ayaa dhacday kadib markii Mugabe uu galay kaalinta labaad ee wareegii koowaad ee doorashada, waxaana kaalinta koowaad galay hogaamiyihii mucaaradka Morgan Tsvangirai. taasina waxay keentay buuq iyo dhibaato badan. ugu dambeyntiina Mr Mugabe waxa uu sheegay inaanu ku qanacsanayn doorashadaasina muran badan ayaa hadheeyey, manay jirin cid ka qaaday xukunka Mr Mugabe. arrimaha soo koobay cimri dhererka xukunkiisana waxaa ka mid ahaa kadib markii dhaqaalaha Zimbabwe uu si weyn u burburay, mudaharaadyo waaweyn oo maciishada lagaga cabanayana waddankaasi ay ka dhaceen, ayaa dad badan waxa ay sheegeen in Mugabe ay tahay meesha inuu ka baxo. ugu dambeyntiina waxaa xilka laga tuuray sanadkii 2017 oo militarigu ay si kooban ula wareegeen Zimbabwe. xilligaasi waxaa la sheegay inuu la saftay xaaskiisa, waxaana laga shakiyey madaxweyne Mugabe inuu xilligaasi taageeray in xaaskiisu ay la wareegto talada xisbiga ZANU-PF iyo talada waddanka Zimbabwe. sidaas awgeedna ciidanka iyo saraakiisha xisbiga ayaa arrinta farageliyey oo xukunka la wareegay, kuwaasi oo ilaa iyo hadda haya.